maayirka magaalada Oog Cabdinaasir Cabdisalaan Ibraahim Shira Afrikaani ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray dhismaha masaajid cusub oo laga hirgeliyay magaalada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar. Dhismaha masaajidkan ay ku tamarruceen ilmo caydiid bootaan kuwaas oo hablo walaalaha oo muxsiniin isla markaasina sadaqa jaariya kula baxay dhismaha masjidkan ay ka dhiseen degmada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar. munaasabadii furitaanka masaajidka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diinta kala duwan ee ku dhaqan degmada Oog, maamulka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee degmadaasi Oog iyo xubno kale oo doora. ugu horeynba Cali Caydiid Bootaan oo wakiilka hablaha muxsiniinta ah ee masaajidkan ku soo tamarrucay iyo gudoomiyaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee degmadaasi Oog Khadar Cumar Xirsi ayaa halkaasi kaga warbixiyay dhismaha masaajidkan iyo qaybaha uu ka kooban yahay. sidoo kalena xubno kamid ah culimada diinta kala duwan ee deegaankaasi Oog iyo cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay sadaqada jaariga ah ee masaajidadu ay ka mid yihiin iyagoo Ilaahayna uga bariyay hablahan muxsiniinta ah. walaalayaal anigoo ku hadlaya magaca maamulka diinta iyo waqaafta ee degmada Oog waxaan maanta aan sharaf noo ah masaajidkan oo ah masaajidada magaalada loo furayo ee ku soo biiray iyadoo markii hore ay masaajido badan lahayd oo ay gudaha magaalada masaajidka marka hordheerada lagu daro uu noqonayo masaajidkii toddobaad. waxaan marka hore mahad u celinayaa oo Ilaahay ugu ducaynayaa dadkii dhisay ee tacabka inta la geliyay inuu Ilaahay miisaankooda xasanaadka aakhiro ugu fuliyo. anigoo ka gabdhihii masaajidkan usul waxaan cadaynaynaa inaan ka haraynin qof walba gacanta ku hayaba aan la ilaalin la wadayno wixii aanu tabartayaan aan mar walba ka wax qabanayno haddii xumaa sameyn noqoto haddii meel wax noqoto haddii qalab xumaa noqoto tawjiga magaalada Oog waxaan leenahay masaajidkii dhismay ilaashada. sidoo kalena xubno kamid ah culimada diinta kala duwan ee deegaankaasi Oog iyo cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay sadaqada jaariga ah ee masaajidadu ay ka mid yihiin iyagoo Ilaahayna uga bariyay hablahan muxsiniinta ah ilmo caydiid bootaan in meesha ay ka soo saareen uu khayr ugu bedelo. bana Allahu lahu baytan fil janna. Ilaahay subhanahu wa ta'ala bayt ayu jannada uga dhisaya wa fadlaad ya duway wa buyut Ilaahay wa meeshii naxariistu ku soo dagaysay وماشي ملائكة إلهي سبحانه وتعالى يعني وحوية يسوع حاضرين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. المساجد كذا يرى وحيابه يقول ميسان مساجد دوان كفاية سنوي هذين وردين ويتحقق كيسو iyo hadii kale duruusay macamalo lagu qayb. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Oog Cabdinaasir Cabdisalaan Ibraahim Shira Afrikaani oo xadhiga ka jaray masaajidkan cusub ee laga hirgeliyay degmada Oog ayaa qurbajooga kale ee hablahan la midka ah ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan horumarka degmadaasi Oog iyaguna ay soo dhisaan dhismayaasha dantu ugu jirto bulshada kala duwan sida masaajidada, madaarista iyo dugsiyada kale ee wax lagu barto. anta waxaan isugu nimi xafladda qaaliga masaajidka iyo malcamada ay dhiseen hablaha ilmo caydiid bootaan oo u dhisay hor Ilaahay iyo waqaf. waa masaajidkii ugu weynaa ee ka dhisma degmada Oog. dadka ka soo jeeda jahliyadaha dibadda ee degmada Oog hablahan oo kala hadday waqaf la baxayaan sida hablahaas oo kale inay la baxaan oo dalkooda iyo degmadoodaba geliyaan waqaf sidaas oo kale. Jaamac Boodacade TV qaranka Soomaaliland degmada Oog gobolka Saraar.